عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta mawduuceena waa kaniiniyaal soo batay sanadadan dambe oo loo yaqaano kaniiniga caanka ah ee Abuubariis Soomaalida u taqaan. Wuxuu ka mid yahay kooxda lagu magacaabo corticosteroid drugs. Intaan ka hadlin daawooyinkan dhibaatooyinka inoo keeni karaan, waxaan ka hadlaynaa asal ahaan wax loo isticmaalo siday u shaqeeyaan. Corticosteroid drugs waxay u shaqeeyaan sida maado jirkeena laga helo oo lagu soo daayo adrenal glands oo lagu magacaabo cortisol. Intaan shaqadiisa fahmin waa maxay shaqada cortisol, maxay tahay shaqadiisa cortisol. Intaan shaqadiisa fahmin waa in fahmaan goorta la soo daayo. Waxaa la soo daayaa subaxii aroortii, yani hurdada markaa ka soo kacday upon you wake up. Markaa hurdada ka soo kacday. Then waxaa la soo daayaa markuu stress jiro. Okay. Koow shaqada uu qabto maxaa waaye energy sare u qaada. Waxaa la soo daayaa stress markii lagu dhahayo waa marka ay jirto fight and flight oo sympathetic nervous systemka ay shaqeynayeen oo stress ka imaado markaas la soo daynaa cortisolka. So wuxuu siyaadinaa shaqadiis waxaa waaye sokorta level of sugar in blood uu sare u qaada, yani level sokorta oo dhiig ku jirto sare u qaada si aan u helno energy badan. Sidoo kale wuxuu awood u leeyahay inuu joojiyo shaqada insulinka oo ahaa inuu yareeyo sokorta. Sidoo kale wuxuu awood u leeyahay inuu sare u qaado heart rate iyo blood pressure-ka. Wuxuu naga caawiyaa in la yareeyo inflammation-ka iyo ama caabuqa. Wuxuu kale awood u leeyahay inuu yareeyo immunity difaaceena jirka. Shaqooyinka cortisol oo jirkeena ka qabto intaana noogu filan. Cortisol inta uu levelkiisa hooseeyo waxaa noogu jiro faa'iido. laakiin mar hadduu sare u kaco waxaa ka dhalan kara dhibaatooyin fara badan. Tusaale ahaan wuxuu sababi karaa cudurka caanka ah ee lagu magacaabo Cushing syndrome. Ma rabo hadda inaan faahfaahiyo, laakiin waa cashirkeena labaad aan ka hadli doono. Aan u soo laaban corticosteroid drugs. Corticosteroid drugs waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo xaaladaha soo socda: arthritis oo ah caabuq ku dhaca kala-goysyada, blood, hormone iyo immune disorders, yani disorders cudurro ku dhaco dhiiga, difaaciina iyo hormoneska qaar. Sidoo kale skin iyo eye conditions, breathing problem, cancer iyo severe allergies. Wuxuu yareynayaa immune response, yani si immune response-geeda, yani difaacaada response oo ka bixin lahaay u jawaabi lahaay foreign bodies-ka ama waxaan dhacayo oo ziyaadada ah oo yareyna. Sidoo kale calaamadaha inflammation-ka lahaayeen oo yareyna oo ka mid ahayd calaamadaha waxaa ka mid ah xanuun meesha oo caabuq ka jiro ay ku xanuunto ay ku bararto yani meesha kuleel ay noqoto soo guduudato ama allergic reaction-ka jiro inuu yareeyo aa loo isticmaalaa daawooyinkan corticosteroid drugs. waa inta loo isticmaalo, yani sababta loo qaato. Okay. Hadda gabdhaheena qaarkood waxay u isticmaalaan in la isku ciido, mana ahan sababta loo sameeyay kaniinigan. So casharkeena soo socda wuxuu noqon karaa daawooyinkan dhibaatooyinka ay keeni karaan. Wuxuu noqon doonaa daawooyinkan dhibaatooyinka ay keeni karaan wax lagu magacaabo Cushing syndrome, calaamadihiisa iyo wix lamid ah. Sababtaan casharkan maanta u soo dhigahayno waxaa waaye hadhowti waxaan ka sheekeyn rabo in hordhac yar ama wax un ka fahansantihiin waxaan sheegno. waxaan rajeynayaa inuu anfacay mawduuceena. weli waxaan nahay arday inkastoo si fiican u diyaariyay haddana yaan isqaban ma qaldamo allah. waxaa diyaarisay Sabriin Maxamed Hussein isban dhaafna qaraabo. waxaan soo wada mawduucyo badan insha allah. share si dad kale uga faa'iideystaan.